waxaa si rasmi ah maanta xilka lagu kala wareejiyay gudoomiyaha waxbarashada gobolka Haw gudoomiyihii hore iyo gudoomiyaha cusub gudoomiyihii hore Axmed Cali Mulac iyo gudoomiyaha cusub Maxamed Sheekh Axmed Maxamed halkaasi waxaa ka soo qayb galay mas'uuliin agaasimayaasha ka tirsan wasaaradda waxbarashada iyo afayeenka wasaaradda waxbarashada Cabdilaahi Xaaji Xasan oo ku dheeraaday habka ay maamuldaadajinta u sameeyeen waxbarashada waxaana hadaladoodii ka mid ahaa oo gobolka runtii jirtay waxaan halkan baaq uga dirayaa guddiga gurmadka qaranka ee madaxweynaha Soomaaliland magacaabay waxa kaloo baaq u diraya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aan leeyahay madaxweyne habeenadii markaan TV-ga daawanayo hawdo waxaan ku wada muxuu ahaa ay waftiyadu ka laba noqonayaan maar xaruntan waa la garanaysa xaruntii halkii dib xarunta qaran ee SN hormuud ka ahayd awood ka ahayd warsama farax Soomaali taliya qaybta intii xaalka ka bixisay habeenkii dhawaato baaqi hore dhacay waxaan sugnaaba waa in gobolkii Haw oo waxaan ku inta uu tabanayo wax laga qabto horumarkana halkii ka sii dhaqaaqa ilaahay idamkii wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland Cabdilaahi Ibraahim Habane oo aan leeyahay wasiir halka dib baynu noqon halka maalintii luutay deer kaliya si laga xigtay iyo waxaan ku leeyahay درجة حلكو السقوة قري السديب شلينا وحاي محمد شيخ ما أنت نوحاي أحمد يرى ما أنت نوح لودي بي محمد شيخ ساسو مرتسجي وحاولي بقى وسالد وحبرشة وحتروى معموليه أما قدومي يشتغل السكتة معلمي دي سوق كتير بدن indhawey aad baa looga maaqay loo haraadan yahay waxaan ku guubaabin lahaa baliyad ama meelaha yadu dadku inay wuxuu qabsadaan oo biyo la xiro biyaha la xiro waxay noogu yimaadeen ay tahay inuu labadeeda gudoomiye sidii ay xilka uu loo kala wareeg lahaayeen intaas oo saacado soo socday iyagana waan u maadnaqeen waxa kale oo maadnaqeenaa shacabka halkan isugu yimid rag iyo dumarba ee ka soo qayb galay xafladda qiimaha leh macallimiinta xildhibaanada dumarka dhammaantiin waa mahadsantiin sunaha dawladda dowladnimada waa shaqada dawladda maalin bali baa jooga inuu ka tagay waxa wadadana maray dawladda shaqada ka tagal warayo dhibaatii ku jiraan kulli gudoomiyaha hore Axmed Nuur la fadhiya kii cusbaana waa jooga waa soo dhaweynaa labadaba waxaa halkaasi soo gabagabeeyay barasaab ku-xigeenka gobolka Haw warsame Faarax Soomaali iyada oo lagu kala gudoonsiiyay gabagabadii shahaado sharafyo lagu talagalay xubno aad u tiro yar oo muteystay shahaadooyinkaasi kana ah bahda waxbarashada waa Axmed Maxamed Cawaale telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolka Haw balgabadle